dan dadkeena aan horumarinayn laakiin interest gaar aan ku wada inaan dadkii dan yartahay aan waxbarasho hirgelin isla markaas xataa anagoo ardayga lacagta iska bixi kara iskoolku dhiganaya si macna iskoolka u aan dhiraado iskoolkaaga joog maadaama adiga wax iska bixi kartid kii laakiin wax iska bixi karin intaas oo arday hadda arkaysid master wuxuu dhanaan dad waxbarasho raay iskaga dhex jira bulshada laakiin ama aqoonaha ama cid iska dan yar ay dhashay dadkaasna u suurtagelinay ilaahay firdigiisa inay wax bartaan waxbarashada ay ardayga la mid ka ahay hooyis abis lacag lahayd inuu la mid noqdo xagga waxbarashada oo is soo gaarsiin insha Allah ayna tahay mid aan sii wadi doono oo ninka hari doonin ilaa fil mustaqbal faasti waxaan bilaawno waxbarasho laakiin anaga different grades oo bulshada lagu hormarinayo xitaa university level fil mustaqbal waa gaari doonaa maadaama aan nahay arday badan oo university level hadda 164 still isku diiwaan gashan laakiin magaalada ku jiraan bil kasta waan raadina anaka qofku yaqaan inuu soo raadiyo ilaa aan gaarno dad weyn oo wax u qaban kara markaasna waa dareemkiisa gacmahooda dirac u qabtaan wax kasta waan qaban karaa university level wax baa gudbi karnaa waana samaysan karnaa marka hadaan ka gudbo garaad iyo wax qabadkiisa mid kale waxay tahay saas mid lamid ah jaamacadaha Muqdisho ka jiro arday saas oo kale ay kana gobolka joogeen oo ugu suurtagelinay inay si free ah xamar wax uga bartaan oo dugsi sare jaamacad arday gaaris ay soo dhalin ka badan inay free xamar wax uga bartaan oo anaka ku suuragelinay marka sidoo kale to waxyaabaha aan qabno waxa kamid ah inaan aruurino oo soo aruurino suugaantii gobolka Galguduud uu lahaa because gobol walba dad gabiyaaya ay leeyahay dad aqliin uu leeyahay anakana gabayada waxaan ka faa'iideynaa himi iyo waxay faa'iido nooga soo baxayso inaan aruurino isla markaasna la yiraahdo gabiyayaasi ama suugaanadii ama awaanadii gobolka Galguduud ay meel laga helo ay ku jiraan si library-yaasha loo dhigo taasina waxay kamid tahay waxyaabaha aan qabanay marka sidoo soo tago garaadiga waxa uu yahay iyo kulay concept-iga main point-iga waa ka fahanteen garaadku siduu yahay waxa uu qabtay iyo waxa uu wiigsanayo ay tahay horumar bulsho oo dhan walba leh dad isku filan oo guri islaameed hamigu ka gelin walaalkoodii uu noqdo qurux badan aan isku markaas laga soo tago waxaan rabaa waxyar oo tixa inaan ka mariyo halkan oo idiisoo oo isla markaas ku aadan garaad macnaha horumarka qofka bini'aadamka wuxuu jecel yahay inuu gaari karo kulay qof walba wuxuu go'aansaday adduunku waxa ugu daran niyad xumo qofka lacagna kuma celi karo waxa la dhahay check faaruq qof ma celiyo laakiin qalbi faaruq qof celi qalbiga inaa niyadda hadaaba aan saddex dhagax inaad dul martid because hadda qofku maarta markuu dhib dhaco meelaha aad isdhii jirtay mar laga boodi karo waa laga boodi warta tulka dhibaato dhacdo qalse u cararayaan maca hamiga ka weyn ku carraa dhibka weyn ku carraa dhibka halkaana laakiin inaan go'aansano in qalbigeena oo safaaruq noqon ilaahayna aan ka barino marba inuu nagu kaalmeeyo wixii bulshada markaas caawin kara maadaama dad dhalaan aan ahay oo yaryar in ayakana sidoo kale wax garad iyo fikir u doonano because fikirka dadka cuqlada waa laga maarmaan waa muhiim jiddan waana wax horumar lagu gaaro marka tixda waxay leedahay waxa lagu hiloobaa lagu kala horeeyaa hamigiyo dadaalkee ruuxadu haraadana iyo kama hiloobe habeen fikir ninkii ihi waligii ma hasaamo waxaan habeen fikir ninkii ihi waligiis ma hasaamo haajirkii waxbarashadee heer kastay ahaataba horumarkaan ka gaarnay haatan waxaan isleenahay himiladii dadkiinee horumarka aad ku gaarteen hamigay lahaayeen hagardaamayay geli ka ilaalsho hongoodkiyo kala haridadkiinii horumar aad bilowdaan waxaa lagu halmaalaa horumar lagu bilaabaa hindisahana keeno macnaha waa dareemi kartiin horumar inuu imaado waxa keeno hindisahaba keeno dadka wada hogaamiyo waa hamuunyo qabatee because waxaad u baahan ma samaysanaysa هذا أبنها إن الرجال هو بهني ما نكسرين لكن أنا كباهي نقبت درت أو أرجع إن لو بهاي هاي إن هرمرت كاني جالسين وحلو هالمالا هرمر له باللعبة درت كوده هجامي وهم يقبتين أو له هجاسمه هالمر له استاجو حبوا عن له هجاتي حد أن جاتي وحن همينيا خوش هات تاجني هالمركي دل كيجيو hagaajinta aayaha bulshooyinka gayigi galguduud ku hiratay hoy qoro ku wada nool sida ay u hanan lahayd hanaqaad hanaan wacan hormad heybad lagu dhisay hufnaan ku helin mara heegada dusha sare halkii ay dadgaaraan ha qabli ku gaaraan
marka gabay waxa la magaciisa ama tixdan higsi iyo horumar macnaha ujeedkeena anagu wuxuu yahay niyo aan leenahay niyo naga go'an insha Allah in fan hada anaga macnaha jiil bacda jiil xitaa anaga maadaama qof inuu sii baxo mustaqbal inaan ku gargaarino si uu u noqon garaad mid istaaga xitaa kuwa naga dambeeya aan ku macaa ku aan tababarayno qof inuu caawiyo kulli hadii la is caawiyo wax wanaaga ka soo dhalanayo xumaan ka soo dhalanayso aan marka noqono kulli qofku markuu dhasho ama ilmiga markuu dhasho waxa la yiraahdaa midkii dadkiisa iyo dalkiisa diintiisa anfac Allah ka dhigo laakiin badana waa gees marna qaabka waxa noqonaa midkii dadkiisa diintiisa dhiba Allah ka dhigo amal inuu noqotay bilcagsi ilaahay waxa ka barayna anaka inoo noqoto sidii loo duceeyay oo marka dhan kulli qof walba oo maleena qof laga xisaabin jirto oo loo duceeyay in ducada ilaahay naga jibo dadkeena diinteena iyo dalkeena aan anfacno aan noqonin dadkoodii hilmaamay ama se dadkeeni oo dib ku jira anaka raaxo aan galno because waxdana ma noogu jira in maanta qof walaalkay ama qaraabada ama dadkeeni Soomaaliyeed oo walaalahay inuu dib ku jiro anigana aan xaalad fiican ku jiro oo wax dhan oo dib kana geeyay dadkaas laga hormaray oo fikir qof uu ka fikiray oo fikir jiilba ka fikiray ilaa ay habeenkii soo jeedaan marka sidoo kale inaan u fikirno ilaahayna uu nagu hagaajiyo fikirka aan fikirayno heesaha Soomaaliyeed kamid ah wuxuu leeyahay nin heesay wuxuu leeyahay waxa nin hagraday dhulkiisii hilibkiisii uu cunay nin hagraday dhulkiisii hilibkiisii cunay marka inaan noqonin kuwii dhulkooda hagrada oo noqono sidii gabyada kale carabeed uu yiri abnaa al-madaris inna nafsi tu'minu fiikum amala al-kabira فسقيا للمدارس لنا قد أنبتت منكم زهورا ستكسب بلاد منكم علوا إذا وجدت لها منكم مسيرا بمعنى هذه كل أبدا عبارة هاي إن وضع الروح اسمه دون فرمان سمعت أيضا هذا إنه واحد موجود رأسية إن شاء الله تدلنا وإحنا نسوي دوين يا وكيلا تغيير أوابوا كانوا تلا كل كيس كل تشاء لأن كلتي ثمانين ومن سنتين aad ay mahadsan tahay naciimo warsamadii oo gudoomiye xigeenka ururka Soomaaliyeed ka howlgala gobolada dhexe ee dalkeena garaad runtii waxaan filayaa in aad hadda si fiican uga bogateen intiina badan waxa uu ku saabsan yahay xafladda inteeda badan iyo ururka garaad waxa uu qabto waan filayaa hadalkaas nafciga leh inaad dad badan ay ka faa'iideysan doonaan nin walaalka ah oo ugu darajaad wuxuu gartay inaad garan weyso adigana runtii waxaan malaynayaa inay tahay sharaf dhacay oo saddex maadaama nin walaalka oo iskool dhiganayo oo meeshaan ku ah musaafir haddii uu bixiyo lacag oo walaalkiis wax ku barayo runtii waa wax fiican oo lagu faani karo waa mahadsantihiin marti sharafta kale nagala soo qayb gashay barnaamijkan fursadooda ayaan siin doonaa laakiin waxaan ku jirnaa bahdii ururka garaad oo annaga aan ka wada midnahay marka waxaan siinayaa madaxa xiriirka dadweynaha Muxyidiin Xaashi Dalmar oo runtii isna ka hadli doona ujeedada maanta kulankan la isugu yimid iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo in dadka la xasuusiyo Muxyidiin ku soo dhawo ka soo qaybgalayaasha aqoon-yahanada oday dhaqameedka nabadoonka dhammaan way aragtida Soomaaliyeed saxaafadda kaamarna sidoo kale waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh run ahaantii sida aad hore u maqasheen xafladda tan qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta mudan ee halkan aan kaga soo qayb gasheen waa xafladda sanad guurada labaad ee urur weynaha garaad ururka garaad run ahaantii waxyaabaha uu soo qabtay shaqooyinkiisa hore ayaa loo soo sheegay waqtiga oo nagu yar awgiis ayaan rabaa inaan soo koobo xafladdan waxa ay ku saabsan tahay ayaa ah waxa lagu talagalay xafladdan in aanu isku ku faraxno raynta iyo bogaadinta halkiis labadii sano aan soo shaqaynaynay waa xafladda sanad guurada labaad ee ururka garaad rumaantii waa urur u taagan markasta horumarinta arrimaha bulshada oo igu sareyso dhanka waxbarashada caafimaadka iyo wacyigelinta saad ka aragtaan kulli missionki ururku mission iyo vision ayuu leeyahay aragtidiisa waa kaasa ay ku qoran tahay inaan waqti badan iskaga dhuminimo doonayno Soomaaliya ay ku qoran tahay haddii wax yar aan dul maro aragtida ururka waa himilada ururka garaad waa gaaritaanka horumar bulsho iyo nabad waarta
ee ka hana qaada gobolada dhexe in horumar buuxa laga gaaro arrimaha bulshada nabad waartan ay ka hana qaado gobolada dhexe ayaa ah missionka uu leeyahay ururka Garaad si loo gaaro marka fishinkaas wuxuu u baahan yahay inaan sameeyno dadaal dheeri ah saad ka aragteena hadda koor waan sameeynay waan ku guulaysanay ilaahay fadligiis haddana waxaan qorsheynaynaa inaan halkii ka sii wadno oo ma ku egaysan doono xafladan ee hawshu way sii socon doontaa marka waxaan rabaa inaan soo gudbo khudbadii la igu yeeray waxa iga aad inaan kaga hadlo waxaan qodobka bilaabaya xafladan waxa ay ku saabsan tahay waan soo sheegay xafladda sanad guurada labada ururka Garaad waxa badanaa la isweydiiyaa markii dhalinyaro sidaan oo kale u shaqeynaysa ama